jacaylku waxaan ugu jeclahay kululaanshihiisa, laakiin marka ay timaado xiriir jacayl waan is ilaaliyaa. waxaan ilaaliyaa qalbiga ka badan intaan ilaaliyo jirkayga inuu dhaawac soo gaaro. weligay qof aan jeclaaday ima dhaawicin, si anigu ma aqaano inaan qof dhaawacay. muuqaalkani waxaan kula wadaagayaa sidaan qalbiga u ilaashaday, aan uga badbaadiyay dhaawacyo badan oo mustaqbalkayga mugdi gelin lahaa. intaan u gudagelin muuqaalkani waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka la garayso si dad badan u gaaro una caawiyo. shayga ugu horeeya aan aamino waxa ay tahay in wax kasta ay dhici karaan. qofkani aan jeclaaday wuu qiyaami karaa, wuu igu danaysan karaa, wuuna jeclaan karaa sidaan anigaba u jeclaaday. dhammaan kuwani waa doorasho qofka aan jeclaaday uu leeyahay, laakiin aniga waxaa ii bannaan hal doorasho oo ah inaan ka fisho qofkani wax weliba. waxaan maskaxdayda ka diidi jiray in riyabayn ay qalbiga ku ma'weyliso. waxaan iska xadidi jiray ka fikirka qofkan si aan si zaa'ida u jeclaanin. qofkani waxaan daneeyaa inta aan la joogo, mar haddii aan kala tagno waxaan qabsadaa danahayga. waan ismashquulin jiray xitaa haddii aanan mashquul ahayn, si aan uga fikirin in badan. tani waxay ii ilaalisay qalbigayga. shayga labaad ee aan ku dadaali jiray waxa ay tahay waxba dib uma dhigto. dareen kastaan u hayo qofkani waan u sheegaa si aan barta ugu ilaawo, because waan ogahay haddii aanan u sheegin in maskaxdeeda in badan ay ka fikiri doonto. taasna inay dhacdo ma ogolaan jirin. waxaan ku dhaqmi jiray xeer ah hadda samee, hadda u sheeg, hadda ku dheh. taasna waxaa ii badbaadisay qalbigayga. shayga saddexaad ee ii suurtagelin qalbigayga marna laga dhaawicin waxa ay tahay wax kasta waxaa igala weynaa riyada nolosha ka leeyahay. qof kasta iyo wax kasta waxaa igala weynaa riyada aan nolosha ka leeyahay. tani waxay iga dhigtay in wax kasta oo ka soo hora inaysan macno ila lahayn. riyadan u dhawaanshaheeda ayaan ku farxaa, nafteedana ku edbiyaa siday u samayn lahayd wax ii dhoweeya. riyadani quruxda badan ee nolosha aan ka leeyahay dhisideeda ayaa igu filan mashquul. aaminsanaantaan aaminsanahay oraahdan waxay ii badbaadisay qalbigayga. ugu dambayntii, haddii aad rabto in qalbigaaga loo soo dhowaanin, dareen bayna lagu kasbanin, keliya ogow in bini'aadamku ay jili karaan dareenka, danqashada iyo jacaylkaba, sida aflaamta marka aad fiirsanaysa u xadaan dareenkaaga. adigoo og inay jiliinta ay kaaga dhigayaan dhab, bini'aadamkan waa sida. qalbigaaga ilaasho,